wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Ankara ee dalka Turkiga ugu qayb galay wajiga koowaad ee wadahadalada farsamada ee kala dhaxeeya dowladda Itoobiya ee ka taagan magaaladaasi. Qoraal uu soo dhigay bartiisa ex wasiir hore ee warfaafinta Daawud Aweys ayaa wax uu sheegay inuu qayb ka yahay wafdiga dowladda ee wadahadalada ugu qayb gali doona magaalada Ankara, waxaana lagu doonayaa in la sii dardargeliyo hirgelinta qodobada ka soo baxay heshiiskii hore ee ka dhacay magaalada Ankara. Waxaana qayb ka ahay wafdiga Soomaaliya ee u yimid Ankara si ay ugu qayb galaan wajiga koowaad ee wadahadalada farsamada u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya, taasi oo ujeedkiisa ay tahay samata bixinta sidii loo dhaqangelin lahaa heshiiska Ankara, ayuu ku yiri qoraalkiisa. wajiga isku arki doonaan guddiga farsamada ee labada dowladood ayaa iska soo xuleen ay diiradda saari doonaan sidii ay dowladda Itoobiya u heli lahaayeen marin biyood ganacsi ay dowladda Soomaaliya ay kormeeri doonto. Wasiirka ayaa sidoo kale qoraalkiisa waxa uu intaasi uu ku sii daray Soomaaliya waxa ay xooga saaraysaa nabadda, adkeynta iyo hanaanka diblomaasiyadeed ee ku dhisan is-afgarad iyo is-ixtiraam. Dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa kulamo kala duwan yeeshay wixii ka dambeeyay December 2024 wadahadaladii isugu soo dhawaanayeen labada dal. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. Zamzam Maxamuud, Home Public Media, magaalada Nairobi.